waxyaabood oo ay tahay inaanad Google ka weydiin. Sidoo kale, muuqaalka xaqiisa dambe waxaan kugula wadaagi doonaa waxyaabaha saxda ah ee aan khatar ku gelinayn ee aad Google ka weydiin karto. Haddaba, koor inta aynaan guda gelin muuqaalkan, subscribe saar channelka, gambalelka yarna dhag ka sii si aanay ku dhaafin muuqaaladu. Tirada waxaynu ka soo bilaabi doonaa xagga hoose aynu bilaabano. Number 9. Weligaa Google ha weydiinin calaamadaha xanuunkaaga. Ugu horreyn, aynu ku bilaabano dhibaatooyinkaaga caafimaad. Waxaa jira website badan oo ka hadla caafimaadka oo internetka ku jira. Website-yadaas oo aanay maamulin ama aanay wax soo gelin dhakhaatiiri. Haddii aad Google ka weydiiso calaamadaha xanuunkaaga, kugu caawin maayo jawaabta saxda ah, balse taa beddelkeeda wuxuu kugu sababi doonaa argagax sababtoo ah calaamadaha aad weydiisay wuxuu kugu tilmaami doonaa inay cudurro waaweyn ku hayaan. Taasina waxay kugu sababi doontaa inaad u malayso inay cudurro aan ku haynba ay ku hayaan. Haddii ay arrimo caafimaadkaaga la xiriira ay ku haystaan, weligaa ha weydiin Google-ka, marnaba ha qaadan dawo uu Google-ku kuu soo jeediyay. taa beddelkeeda dhakhtar dhab ah u tag oo kala hadal arrintaada caafimaad. Number 8. weligaa Google-ka ha weydiinin waxyaabo dambi la xiriira. Arrintani waa khatar. waxaa laga yaabaa inaad Google-ka weydiiso sida bamba loo sameeyo ama sida meeno loo sameeyo adigoo wax ujeedaha ka lahayn, balse arrintaasi khatar ayay kugu keeni kartaa. waxaad maskaxdaada ku haysaa inay dhaqdhaqaaqyada noocaas ah iyo baadhitaanada noocaas ah ay badanaa la socdaan dadka amniga iyo daroogooyinka ka shaqeeya. adreyska internetkaagana si fudud ayay u heli karaan. taasina waxay kugu sababi kartaa in lagu xidhaba. dhowr sano ka hor ayaa 2 qof oo walaalo ah oo guri ku wada noolaa ayaa wuxuu mid Google-ka ka baadhay sida bamba loo sameeyo, mid kalena wuxuu ka baadhay shandadaha lagu qaato waxyaabaha qarxa. isla markiibana waxa albaabkoodii ku soo garaacay ciidan. khatar ha gelin amnigaaga adigoo wax uga wisleh. Number 7. weligaa kansar ha weydiin Google-ka. odhah ayaa waxay tidhaahdaa inta badan ee aad wax yar og tahay waa inta badan aad si fiican u seexato. waxaa jira noocyo badan oo uu xanuunkan kansarku leeyahay. waxaanu sidoo kale leeyahay calaamado badan oo la mid ah calaamadaha ay leeyihiin xanuuno badan oo aan dhibaato lahayn. dadku badanaa way dareemaan dawakhaad, bilaa awood, lalabo iyo wixii la mid ah, waana wax iska caadi ah. haddii aad waxyaabahan isku aragto isla markaana Google-ku ku dhaahdo waxaas waa kansar, waxaa laga yaabaa inaad argagaxdo oo aad yaabto iyadoo wuxuba aanu kansar ahayn oo uu ku hayay xanuun yar oo aan dhibaato lahayn. Number 6. weligaa Google-ka ha weydiin hana ka soo dejisanin applicationada mobilada Android-ka ah. applicationada aynu u isticmaalno mobiladeena siiba Android-ka, weligaa Google-ka ha ka baadhin oo ha soo dejisanin. tusaale ahaan, haddii aad WhatsApp soo dejisanayso, Google-ka intaad ka baadho ha ka soo dejisanin ee Play Store-ka tag oo ka soo dejiso. waxaa jira hakaris badan oo sameeyay applicationo la mid ah kuwa caadiga ah oo Google ka dhigay. sidaa darteedna, haddii aad Google-ka weydiiso applicationska oo aad ka soo download garaysato, waxaad khatar ugu jirtaa inaad soo dejisato application been ah oo uu virus ka buuxo. hakariskuna waxay xadi doonaan xogtaada sida sawiradaada, emailadaada iyo xogaha kale ee muhiimka ah, sidaasaanay mobilkaaga ku jabsanayaan. Number 5. ha weydiinin Google-ka xanuunada maqaarka. waxaa jira xanuuno badan oo la xidhiidha maqaarka, qaarkoodna aragtidoodu aad bay u xun tahay. mararka qaar waxaa laga yaabaa inaad ka baadho Google-ka iyadoo ay jirto sabab aad uga baadhaysaa, balse inta ugu badan waxaa fiican inaad waxaa jaahil ka ahaato, sababtoo ah inaad waxyaabahan oo kale aragtaa waa wax aad u dhib badan oo aanad u adkaysan karin. Number 4. ha ka baadhin Google-ka sababada dadka sigaarka caba. waxaa jira dad badan oo sigaarka caba. marar badanna waxaa laga yaabaa inuu qofku isweydiiyo saamaynta xun ee cabista sigaarku ay ku keento caafimaadka, siiba sambabada. internetkana waxaa ka buuxa sawirro laga qaaday sambabo aad u xumaaday oo ay lahaayeen dadka sigaarka sida aadka ah u caba. sawirradaasi oo kugu sababi karaa inaad aad u argagaxdo markaad aragto. dabcan Google-ka waad weydiin kartaa sawirrada sambabadan haddii aad ka dhiganayso dhiirigelin xoogan oo aad sigaarka iskaga joojinayso, balse haddana waxaa fiican inaanad Google-ka weydiin oo aanad ka baadhin sambabadaas. Number 3. xayawaanada khatarta ah. fadlan xayawaanada ha weydiin Google-ka haddii aanad rabin inay cabsiyo xumi kugu abuurmaan. waxaa jira xayawaano tiro badan oo cabsi badan leh oo adduunka ku nool, kuwaasi oo laga yaababa xataa inay meesha aad joogto ku nool yihiin. haddii aad xayawaanada Google-ka weydiisana, waxaa laga yaabaa inaad ka qaado cabsiyaha ugu xun ee qofka ku dhaca oo aad qolkaaga aamin weydo. Number 2.
magacaaga Google ha ka baadhin. waqtigan casriga ah ee aynu joogno privacy-geenu aad ayuu khatar ugu jiraa, waxaana aad u suurtagal ah in Google-ka iyo Facebook-ba ay ka og yihiin xog aad u badan. haddii aad magacaaga Google-ka weydiiso internet-kana aad muddo aad u badan isticmaalaysay, waxa aad u suurtagal ah inaad kala kulanto natiijooyin aan fiicnayn, sida sawirro aad beri hore gashay, xogo waqti hore ah oo aanad jeclaysanayn. taasina waxay sababi kartaa inaad aad ula yaabto kana xumaato, aanad jeclaysato inaad delete garayso ama aad tirtirto, balse taasi aanay kuu noqon wax fudud oo aad waxba ka qaban kari weydo. markaas oo kalena waxa kaliya ee kuu fiican waa inaanad Google-ka ka raadin. like star muuqaalkan haddii aanad weli hore magacaaga Google-ka uga raadin. Number 1, ha ka baadhin Google-ka gabadh dhalaysa. waxaynu badanaa filimada ka aragnaa gabadh loola cararaya isbitaalka oo foolanaysa, oo xoog u qaylinaysa, iyo dhakhaatiir isku dayaya inay dejiyaan. waana xaalad walaac badan xataa markaad filimada ka daawanayso, balse xaqiiq ahaan dhalmada caadiga ahi intaa 100 jeer ayay ka sii daran tahay. waxaa la sheegaa in dhalmadu ay tahay waxa labaad ee ugu xanuunka badan leh ee qofka bini'aadanka ahi dareemo. waxaa gaar ahaan lagula taliyaa dumarka inaanay daawan isla markaana aanay Google-ka ka baadhin dhalmada, maadaama marka ay arkaan ay taasi ka niyad jabin karto inay u badalaan, cabsi badanna ay ka qaadi karaan. sidaa darteed ha isku dayin inaad Google-ka weydiiso arrintan. haddaba maxaa fiican inaad Google-ka weydiiso? xaggii aad Google-ka ka weydiin lahayd waxyaabaha aan fiicnayn, waxaa jira waxyaabo kale oo ka madadaalo badan oo aad Google-ka weydiin karto kana baadhi karto. haddii aad English wax ku baadho, isku day inaad erayadan Google-ka ku qorto why ama how ama do, waxaana kuu soo bixi doonaa waxyaabaha ugu xiisaha badan leh ee ay dadku weydiiyaan Google-ka ama ay internet-ka ka baadhaan. haddii aad Soomaali ku baadhana, waxaa kuu soo bixi doonaa waxyaabaha cajiibka ah ee ay Soomaalidu Google-ka weydiiyaan. bal hadda ku qor xarfahan Google-ka sida sababta, waxaana kuu soo bixi doonaa waxyaabo aad yaabi doonto oo ay Soomaalidu xiiseeyaan isla markaana ay ka baadhaan Google-ka. isku day wacan. ha iloobin inaad channelka subscribe saarto, like taana ku dhufo oo dhag ka sii, lana sii wadaag oo u dir muuqaalkan asxaabtaada.